سمينا سبحانه يا الشيخ علي محمد وأنا أقرأ دون القرآن الكريم فلد فضل شيخ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. عن حدو يردونا المسؤول كحفلة اسم مرهانتنا اسكدبه ريدك اسكدب ردها انجنير جوليد أحمد وينو معنين دونو وحان هلكن اسكدب معنين كستو انو ذوقناهاي كسودو. السلام عليكم. xafladan qiimaha iyo qaayaha leh maanta aan isugu nimid waxay ka tarjumaysaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Xasan Sheekh Ahmed sida ula socotaan waxaa la magacaabay ra'iisul wasaare cusub kolley hadda ilmaha yaryar xataa waa yaqaanay Sheekh Shariif hadda laakiin ra'iisul wasaare marka waxaan rabaa inaan maaragtay intuso muuqaalkiisa waa ninka okiyaalahaas qaba Dr. Cabdirashiid Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake kolley waa shan sababta loo magacaabay iyo waxa lagu magacaabay iyo arinta meesha maaragtay kulley hadda labadaas nin oo dhalinyarada ah haddaan nahay Soomaali 8 milyan baanu nahay 8 milyan kulli siyaasiyiin kulli 8 siyaasiyiin laakiin waxaa la yaab leh waddankan aan joogno 16 milyan ayay leeyihiin 16 milyan ayay leeyihiin 16 milyan waxay ka hadlaan kaliya hawada waa aragteen meel kasta meel isugu imaano waxa leeyahay ay maanta hawadii see waay cimiladii see waay dadkaas ma naga fiican mise anaga ka fiican runtii asweydiin maartay hal kursi ayaa rabnaa 8 milyan inaan ku fariisano hal kursi wax soconaya ma aha marka kolley hadda ma aragtay waa inaan ku faraxnaa kulligeena shir gudoomiye maantay halkan waxaa ka ah Dr. Raysa Hamza oo geeskaas fadhida dhinaca waxaa fadhiya Sheekh Ali Sheekh Abu Munya marka hadda barnaamijka ma aragtay wuxuu noogu socon doonaa ma aragtay sidaas kabacdina ma aragtay waxaan noo imaan doona ma aragtay dhaqan waxaan u leenahay heeso ha ahaadaan ma aragtay buraanbur ha ahaado shiriibis ha ahaado kolley hadda inta kale idinka ku darsanay shirib
marka waxaan ku wareejinayaa doctoraysa xamsa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin waa salaamantiin walaalayaal. intaan arkayna waxaa fiican baan u malaynaa inaan istaago. walaalayaal waxaan idinku soo dhaweynayaa maanta si diiran oo qiimo iyo qaayo badanba leh. isu imaatinkeena maanta haddee nin walba waa og yahay, laakiin waxa weeye waxaad ogtahay ma kuu sheegaan. maanta waxaanu u dabaaldegaynaa, bogaadinaynaa si ay qiimo iyo qaayo badan ku dheehan tahay aanu ugu bogaadinaynaa madaxweynahayna doctor shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaaraha shalay la doortay. nasiib baan u yeelanay haddaanu nahay Holland, waayo dalalkii kaloo dabaaldega samaynaya madaxweyne unbay u dabaaldegayeen, laakiin maanta dowladdii waa noo dhan tahay. ra-iisul wasaare cusub baanu dooranay, doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaanu u dooranay. sidaa darteed waxaa farxad weyn noo ah kasoo qaybgalka xafladan lagu maamuusayo laguna soo dhaweynayo dowladda cusub iyo madaxda ay u yihiin madaxweyne doctor shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke. innagoo dhammaanteenba u rajaynayna inuu xilkaas culus ilaahay u fududeeyo. aamiin dhammaanteenba. ummadda soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha joogta waxaan ka codsanaynaa si hagar la-aanah iyo hufnaan ku jirto inay uga qayb galaan hiil iyo hooba dib u soo noolaynta qarannimadii ummadda soomaaliyeed. madaxda cusubna waxaan kula talinaynaa in ay ka faa'iidaystaan marxaladan cusub ee nabadaynta, kana waantoobaan dhacdooyinkii horey u dhici jiray. waxaan kaloo ognahay in diinta islaamku ay mid tahay. sidaas daraaddeed waxaan firqooyinka aan magacyada badan leh ee diiniga ah u soo jeedinaynaa inay midoobaan, maadaama shiiquna ugu weynaa uu yahay madaxweynihii dalka.